السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب يا السور هذا مقالكين maanta waxaan uga hadli doonaa 10 dal ee Afrika ugu awood badan. Balse intaan maqaalka bilaabin waxaan idin ka codsanayaa inaad maqaalka like gareysaan, channelkana aad subscribe dhahdaan. Mahadsanidin. Qiimayntan waxay ku saleysan tahay ilaa iyo 4 nooc. Ugu horreyn waxaa la qiimeynayaa qalabka military ee wadankaas uu leeyahay iyo inta ciidan ee wadankaas heeganka ah iyo tababarka ciidamada ay leeyihiin. Intaas iyo difaaca budgetka ama budgetka ku baxa ciidamada intaasoo arrimood ayaa lagu qiimeeyaa wadan awoodiisa. Kaalinta tobnaad waxaa ku jira wadanka Angola. Wadankan wuxuu ku yaalaa galbeedka qaaradda Afrika. Budgetka ciidamada ku baxa dalkan waa 3.5 bilyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah. Sidoo kale dalkan wuxuu leeyahay ilaa 170,000 oo ciidamada diyaarka ah ama heeganka ah. Sidoo kale wuxuu leeyahay ilaa ciidamo gaaraya 500,000 oo ciidamada keedka ah. dalkan wuxuu leeyahay ama wuxuu ku hubeysan yahay ciidamadiisu hubka casriga ah sida diyaaradaha dagaalka, taangiyada iyo waliba gawaarida dagaalka. Kaalinta sagaalaad waxaa ku jira dalka Tanzania. Tanzania budgetka ciidamadiisa ku baxaan waa lacag gaaraysa 600 milyan oo dollar. dalkan wuxuu leeyahay ilaa 300,000 oo ciidamada diyaarka ah ama heeganka ah waqti walba inay dagaal galaan. Sidoo kale wuxuu leeyahay ciidamo gaaraya ilaa 50,000 oo ciidamada keedka ah. dalkan ciidamadiisu waxay ku qalabeysan yihiin hubka casriga ah haddii ay ahaan lahayd taangiyada iyo diyaaradaha dagaalka. ciidamada dalkan waxay howlgallo ka fuliyeen Suudaan. sidoo kale dagaalka hadda socda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ka qayb qaadanaya. Kaalinta sideedaad ee kala sareynta dalalka ugu awood badan qaaradda Afrika waxaa ku jira dalka Kenya. Kenya budgetka ciidamadooda ku baxa waa lacag gaaraysa ilaa 800 milyan oo dollar. waxayna leeyihiin ilaa ciidamo gaaraya 24,000 oo ciidamo diyaar ah ama waqti walba heegan u ah inay dagaal galaan. sidoo kale waxay leeyihiin ciidamo keed ah oo gaaraya ilaa 5,000 oo ciidamo. ciidamada Kenya waxay ku qalabeysan yihiin hubka casriga ah haddii ay ahaan lahayd diyaaradaha dagaalka iyo waliba taangiyada. sidoo kale ciidamada Kenya waxay nabad ilaalin u joogaan wadamada qaar ee dariska la ah dalka Kenya sida South Sudan iyo Soomaaliya. Kaalinta toddobaad waxaa ku jira dalka Suudaan. budgetka ciidamada ku baxa dalkaas waa lacag gaaraysa 2.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. sidoo kale dalkan wuxuu leeyahay ilaa ciidamo gaaraya 110,000 oo ciidamada heeganka ah. sidoo kale wuxuu leeyahay ciidamo gaaraya ilaa 150,000 oo kamid ah ciidamada keedka. dalkan ciidamadiisu waxay kamid yihiin ciidamada Afrika ugu awoodda badan. waxayna ka qayb qaateen ama ay ka howlgaleen dagaalada hadda ka socda gudaha Suudaan kuwaasoo isku farxayaan ama isku farasaareen ciidamada mucaaradka ee dalkaas. Kaalinta lixaad ee kala sareynta quwadda ama awoodda qaaradda Afrika waxaa ku jira Morocco. Morocco ciidamada budgetka waxaa ku baxo lacag gaaraysa ilaa 3.4 bilyan oo dollar. ciidanka ay haystaan waa ciidamada ugu badan ama waxay kamid yihiin dalalka haysta ciidamada ugu badan ee qaaradda Afrika. ciidamada ay haystaan ama ciidamada diyaarka ah waqti walba heeganka ah waxay gaarayaan ilaa 200,000. sidoo kale waxay haystaan ciidamo keed oo gaaraya ilaa 150,000. ciidamada dalkan waxay ku qalabeysan yihiin qalabka dagaal ee casriga ah sida diyaaradaha dagaalka, taangiyada iyo waliba madaafiicda culus. ciidamada dalkan waxay ka qayb qaataan dagaalada hadda ka socda Western Sahara ama galbeedka Sahara taasoo Morocco ay u aragto qayb kamid ah dalkeeda. Kaalinta shanaad waxaa ku jira dalka Ethiopia. Ethiopia waxay kamid tahay dalalka leh ciidamada ugu badan ee qaaradda Afrika. budgetka ciidamadooda ku baxa waa lacag gaaraysa 4 milyan oo dollarka Mareykanka ah. ciidamadooda diyaarka ah ama heeganka ah waxay gaarayaan ilaa 180,000. sidoo kale ciidamadeeda keedka waxay gaarayaan ilaa 150,000. ciidamada Ethiopia waxay ka qayb qaataan dagaalada hadda ka socda Soomaaliya ayagoo nabad ilaalin ahaan u joogaan hadda gudaha Soomaaliya. Kaalinta afraad waxaa ku jira dalka Nigeria. budgetka ciidamadooda ku baxa wuxuu gaarayaa 2.4 bilyan oo dollar. ciidamada Nigerianka ee diyaarka u ah ama heeganka ah waxay gaarayaan 120,000 oo ciidamo ah. sidoo kale ciidamada keedka ee leedahay dalkaas wuxuu gaarayaa ilaa 80,000. ciidamada dalkan waxay ku qalabeysan yihiin qalabka casriga ah ama agabka military ee ugu dambeeya caalamka. sidoo kale waxay dagaal kula jiraan kooxda Boko Haram kuwaas oo ka dagaalamaan waqooyi bari ama gobolada waqooyi bari ee dalkaas. Kaalinta saddexaad xagga kala sareynta militariga qaaradda Afrika waxaa ku jira dalka South Africa. South Africa waa wadan ka mid ah wadamada ugu qanisan qaaradda Afrika. budgetka ciidamada ku baxa wuxuu gaarayaa 4.3 bilyan oo dollar. sidoo kale dalkan wuxuu leeyahay 78,000 oo ciidan oo diyaar ah ama heegan ah. sidoo kale ciidamada keedka dalkan waxay gaarayaan 17,000. ciidamada dalkan waxay ku qalabeysan yihiin qalabka military ee ugu dambeeya caalamka haddii ahaan lahayd gudisyada maraakiibta, diyaaradaha dagaalka, iyo taangiyada iyo waliba madaafiicda culus. qalabyada ciidamadan dalkan ay ku hubeysan yihiin badanaa ama inta ugu badan waxaa laga keenaa dalka Ruushka. ciidamada dalkan South Africa waxay ka qayb qaateen dagaalada ka dhacay Mozambique. sidoo kale waxay hadda ka qayb qaadanayaan dagaalada ka socda DRC ama Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
kaalinta labaad waxaa ku jiro dalka Algeria. Algeria budgetka ciidamadiisa uu ku bixiyo waxay gaarayaan ilaa iyo 10 bilyan oo dollar, waana kan ugu badan ee waddan Afrika ku yaal uu ku bixiyo xagga difaaca. wuxuuna ku jiraa kaalinta labaad xagga kala sareynta militariga. dalkan wuxuu leeyahay ciidamo keed oo gaaraya ilaa 150 kun iyo ciidamo diyaar ah oo marba heegan u ah inay dagaal galaan oo na gaaraya ilaa 130 kun oo ciidan. budgetkan aad u faraha badan uu dalkan ku bixinayo xagga difaaca waxay u ogolaatay inay haystaan hubka casriga ee waqti xaadirkan dunida laga isticmaalo, sida diyaaradaha dagaalka, taangiyada casriga iyo weliba madaafiicda casriga ah. ciidamada dalkan waxay ka qayb qaateen dagaalkii sokeeye ee ka dhacay gudaha Algeria iyo weliba dagaalka hadda ka socdo gudaha dalka Mali. ugu dambeyn, dalka ugu awoodda badan military ahaan qaaradda Afrika waa waddanka Egypt ama dalka Masar. dalka Masar wuxuu leeyahay ciidanka ugu badan ee qaaradda Afrika, asigoo haysto ciidamo gaaraya ilaa 450 kun oo ciidamada heeganka ah ama ciidamada waqti walba dagaalka diyaarka u ah. sidoo kale wuxuu leeyahay ciidamo keed ah oo gaaraya ilaa 800 oo kun oo ciidan ah. dalkan budgetka ciidamadiisa ama budgetka difaaca dalkan ku baxa wuxuu gaarayaa 4.4 bilyan, waa kan ugu badan marka laga reebo Algeria. waa dalka labaad ee ugu badan ee budgetka difaaca intaasoo lacag ah ku bixiya. ciidamada dalkan waxay ku qalabaysan yihiin qalabka military ee ugu dambeeyay, haddii ay ahaan lahayd maraakiibta dagaal, diyaaradaha dagaalka iyo weliba taangiyada. dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka dhifka ah ama dalalka farakutiriska ee Afrika ee leh maraakiibta gujisyada.